bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan saaxiibayaal halkani waa runsheeg TV waa bartaaynu YouTube-ka ku leenahay qodobada ugu waaweyn aan warka idinkugu hayno saaxiibayaal caawa waxaa kamid ah lacag mucaaradka dawladdu leeyihiin oo nisa gacanta ay ku dhigtay sidoo kale saaxiibayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa Siciid Cabdullaahi Dani waa madaxweynaha Puntland oo si cad uga soo horjeestay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble iyo khilaafka Rooble iyo Dani oo xoogeystay sidoo kale saaxiibayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa askari iyo saraakiil ka tirsan amisom ayaa lagu xukumay dil iyo xabsi dheer xilli Simon oo caqabad ku ahaa cadaalad u helidda dadkaasi shacabka Soomaaliyeed dalka laga cayriyay waxaan kaloo idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal walaac xoogan oo laga qabo doorashada golaha shacabka oo korodhay iyo degnin laga soo saarayo qodobadaas iyo qodobo kale ayaan saaxiibayaal idiin soo gudbinaynaa fadlan haddii aad nagu cusub tahay waxaan si naxariis leh kaaga codsanaynaa inaad subscribe inoo saadho like-na ay nagu dhiirigelisaan insha Allah waa hagaag saaxiibayaal aynu ku bilowno lacag mucaaradka dawladdu leeyihiin ayaa nisa gacanta ku dhigtay waxa garoonka caalamiga ah ee aadan caada lagu qabtay lacag fara badan oo la sheegay in ay ku socotay mucaaradka dawladda kana timaaday Imaaraadka Carabta lacagtan oo cadadeedu ay aad u badan tahay ayaa waxa gacanta ku dhigay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya mucaaradka dawladda ayaa dhawaanahan waxay ka cabanayeen lacag la'aan baasan waxayna ka cabsi qabaan ama cabsi ka muujiyeenba in ay doorasho ay ka qaybgali waayaan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa maalmahan shaqo xoogan ka wada garoonka caalamiga ah ee aadan caada ee magaalada Muqdisho sidoo kale saraakiisha lacagtan gacanta ku dhigay ayaa sheegay in ay baaritaan ku wadaan cidda sida gaarka ah lacagtan ugu socotay iyaga oo ballan qaaday in ay bulshada la wadaagi doonaan marka uu baaritaankoodu soo dhamaado saaxiibayaal mucaaradka dawladda ayaa yaantan waday qorshe ay ku doonayaan in doorashada dib loogu dhigo si ay u raadsadaan lacaga ay doorashada ku galaan balse Rooble oo ah mas'uulka ugu sareeya doorashooyinka dalka yaantan lagu xamanayay in uu gacan saar la leeyahay mucaaradka ayaa u muuqda inuu ka soo horjeestay doonitaankooda ama doonitaanka kooxaha mucaaradka daawadayaal sidoo kale yaantan waxa baraha bulshada ku soo batay ama aad ku arkaysaa in mucaarad ay ku kala leexdeen oo bimdo midka kale uu cadawgiisa u arka taasoo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u saashay inuu qabto shaqooyin badan dhowr jeer oo hore ayaa sidaan oo kale lacaga ku socday mucaaradka badankeedna ahayd cash waxa gacanta ku dhigay saraakiisha ka howlgala garoonka aadan caade si kastaba ha ahaatee dawladda uu hogaamiyo mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku dadaalaysay in ay ka ilaaliso gacmo shisheeye in ay soo dhaxgalaan doorashada dhawaan la qabanayo sidii dhici jirtay kol hore sidoo kale saaxiibayaal qodobada kale aan idiin haynana waxaa kamid ah Siciid Dani waa madaxweynaha Puntland oo si cad uga soo horjeestay Rooble oo qaatay go'aan adag madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa ka soo horjeestay qaabka ay ku socoto doorashada golaha shacabka isagoo doonaya in uu afduubto xildhibaanada sidii dhacday doorashadii aqalka sare taasi oo noqotay fadeexad u soo hooyatay Rooble maadaama Rooble uu yahay mas'uulka ugu sareeya doorashooyinka dalka Rooble iyo Dani ayaa aad u kala aragti duwan madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa doonaya in uu isagu soo xulo ergada halka Rooble uu doonaya in odayaasha dhaqanka ay soo xulaan ergada si looga baaqsado isqabqabsi ka yimaada beesha kursiga iskale warar hoose u helay Runsheeg TV ayaa tilmaamaya in Siciid Cabdullaahi Dani uu doonaya inuu gacanta ku dhigo dhammaan xildhibaanada golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu tahay Puntland taasoo Siciid Dani u arko fursad uu kula tartami karo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo balse Rooble oo ka cabsanaya in fadeexad kale uu kala kulmo doorashada ayaa ku cadaadinaya Dani inuu faraha kala baxo ergada wax dooranaysa si ay u dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah wararka ayaa intaasi ku daray in Siciid Dani uu hami xoogan kaga jiro kursiga ugu sareeya dalka balse dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in haddii uu isku dayo tilaabadaasi uu labada dhinacba waayi karo waa Puntland uu hadda hogaamiyo iyo kan uu hanqal taagayo ee kursiga ugu sareeya dalka sidoo kale daawadayaal waxaa xusid mudan in deegaanada Puntland aan laga isticmaalin wax lacag shilin Soomaaliya taasi oo dadka ku khasabtay in ay ka cararaan dhammaan deegaanada Puntland ayaa hadda u muuqata kaliya caqabada ku hareeraysan doorasho ka dhacda dalka waqtigii loogu talagalay askar iyo saraakiil ka tirsan amisom ayaa lagu xukumay dil iyo xabsi dheer xilli Simon oo caqabad ku ahaa cadaalad u helidda dadka shacabka Soomaaliyeed dalka laga cayriyay maxkamadda ciidamada qalabka sida Uganda ayaa maanta xukun kala duwan ku riday saraakiil iyo askar ku lug lahayd dilkii shacabkii deegaanka Golweyn ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose laba sarkaal oo ciidanka falkaasi geystay madax u ahaa ayaa lagu xukumay dil toogasho
sidoo kale askartii dilka fulisay ayaa lagu xukumay min 37 sano oo xabsi ah. xukunkan ayaa maanta ka dhacay gudaha xalane ee magaalada Muqdisho waxaana goobjoog ahaa ehelada dadka la laayay. dhacdadan oo ahayd bishii Agost ee sanadkan waxaa lagu dilay 7 qof oo shacab ah waxaana la sheegay in qaarkood lagu dul fariisiyay ama la dul saaray miino kadibna lagu qarxiyay. madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa hore u sheegay isna oo cambaareeyay dhacdada golweyn waxaana ballan qaaday in askartii dilkaasi geysatay la ciqaabayo isla markaana magdhow la siinayo qoysaskii dadkooda halkaasi lagu laayay. ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay inaysan aqbali doonin raalina aanay ka ahayn in shacabka Soomaaliyeed dib loo geysto. Simon oo dawladda Soomaaliya kol hore cayrisay ayaa waxaa kamid ahaa sababihii loo cayriyay inuu hortaagnaa cadaalad u helidda dadka shacabka ah ee la xasuuqay. arrinta la yaab kale ayaa waxay ahayd in midowga musharaxiinta mucaaradka ay midowga Afrika u direen warqad ay ku leeyihiin waan ka xunnahay cayrinta Simon Milongo. arrintaasi oo la yaabeen dadka Soomaaliyeed dhammaantood. qodobada kale ee saaxiibayaalidiin haynana waxaa kamid ah walaac xooggan oo laga qabo doorashada golaha shacabka oo korodhay iyo degniin laga soo saarayo. ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa walaac xooggan ka muujiyay doorashada golaha shacabka oo dhawaan si hordhaca uga bilaabatay magaalada Muqdisho waxayna ka digeen nidaamka ay ku bilowdeen doorashooyinka dalka. qoraalkan ka soo baxay ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu dalbaday in doorashooyinka golaha shacabka ay noqdaan kuwo hufan oo daahfuran isla markaana aan ka hor imaaneyn habraaci loo sameeyay doorashooyinka iyo heshiiskii la gaaray. bulshada rayidka waxay soo jeedinayaan in golaha wadatashiga qaran sida ugu dhaqsiyaha badan in ay ku soo saaraan jadwalka doorashooyinka iyadoo aan waxba laga bedelan heshiiskii 17 Sebtembar ayaa lagu yiri qoraalka. waxay ka digeen in doorashada golaha shacabka ay ku socdaan nidaamkii ay ku bilowdeen oo ay inuu u muuqdo mid aan waafaqsaneyn heshiiskii doorashooyinka. waxaa walwal badan ka qabnaa suurtagalnimada in la baal maro habraaca loo dejiyo doorashooyinka dalka. sidoo kale waxay soo dhaweeyeen baaqii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu u jeediyay guddiga hirgelinta doorashooyinka ee labada heer ee ku aadan in sida ugu dhaqsiyaha badan loo bilaabo doorashooyinka golaha shacabka. xarunta la socodka doorashooyinka ee bulshada rayidka waxay bogaadinaysaa dadaalada lagu xaqiijinayo hubinta qoondada 30% ee haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin matalaadda shacabka. ugu dambeyntii waxay ugu baaqeen in mas'uuliyiinta dalka iyo guddiga maamulka doorashooyinka in ay u hoggaansamaan habraaca lagu xaqiijinayo matalaadda haweenka oo ay sheegeen in ay muhiim u tahay geedi socodka doorashooyinka dalka. saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa warkii aad ka daawanayseen Runsheeg TV. fadlan haddii aad inagu cusub tahay waxaan si naxariis leh kaaga codsanaynaa inaad subscribe inoo saadho like-na inagu dhiirigelisaan insha Allah.